sheekadii ugu qosolka badneed ee maqlo iyo waxay ahayd nin baa waa sawa waxa dhacday gabdha qaylaya loo geeyay gabdha qaylaya yaa loo geeyay marka waxay isku soo horjeesadeen ninkani gabadh magaranaysa markay maqaanto saa ay kaga dhigto saas ay dhahdaa inta kore dhaqaajisa inta dhaqaajiso iyo iljibina ku daray waa saa dhii marka ninkan waa Cabdiqafaar ninkan waa Cabdiqafaar gabadha lama haysta uu ka soo horjeeda adisana babad iyo dhaxan baa saa u dhacaysa meel kul markuu ninku ku jirana magaranaysa dhaxanta kaada xitaa dhibsan inuu musqusho ha saan bay ku dhahday moogta asoo saanta isoo fiirsay meesha ku tagay soo qaatin leeyahay banaanka u sii bax banaanka u sii bax ninka waa boodaa marka dhaxantii iyo babadkiina wuu jiraa kaadida isku heshinay banaanka u boodaa soo afku jeelka labada gabay 30 daqiiqo markuu taagnaa ilaa 40 daqiiqo oo wax u soo baxay waay uu ku soo laabtaa malaha wax chance way weeyday ku soo kacdo oo dadkani waxaan ka cabsanaysaa soo ag fadhiis in yar markuu fadhiyo meelaha 2 daqiiqo ama 5 daqiiqo yaa saantii lagu dhaho yaa loo raacay in jibin yar dhag soo boodi wallahi waran hadda chance heshaan soo banaanka u boodi saacad bu taagnaan marka babadkii dhaxanta soo soo girgir jaadkiisina meeshu yaala soo soo girgirinay ya markii dambe uu arkay inay wuxuu fahmay gabadha ku ciyaarayso mar dambe ayadoo sheeko iska wada intuu soo laabtay ay ka soo horjeedaa moogta ayadoo sheeko iska wada meesha ku tiri ya soo ku beenalay wallahi baa dadka dhacmartigiis ku beenalay ya meel lama socdaano ya marka way jiraan dad dhibaatooyin badan kala kulma horta dadku way wada qarsanayaan in aan dhibaato la kulmin ma jiro ninka ugu yar waa ninka magaranaysaa inta lagu yiraahdo soo qayl in masuulana uu ah moogta ya war Maxamed baa lagu yiri moogta sa xaafad horta sheekadu waan ku kala dhaafay xaafad waxay fadhiyaan islaamta inay ogolaan guriga in lagu qaylo si sir lagu soo galiyay ma garat marka hoos soo hadlo oo heesi waxa dhageysanina iyo gabadha ku tiray si sir ku soo galisay ma garat ninka najaadku ku cusub yahay maalintii koowaad baa imsa maalintii labaad waa nin masuula marka ninkii kale markay marqaanku isku daba dhacay umba ayar ku yiri war Maxamed buu ku yiri marka Maxamedkii waxa la noqotay in lagu yeeriyo banaanka cabaar markuu aamusnaado umba Maxamedkii ma waxa la noqonaysa in banaanka laga dhawaaqo soo wuxuu dhahay soo bad oo dhaamo qof kale mareelale kii la marqaamay ba dhihi war Maxamed waxaan ku weydiiyay suka amsaawo yidhay qaado dhahay sado banaanka laga dhawaaqo Maxamed laga leeyahay banaanka soo dhaha gaarsi codka waa dadka ugu dhibaatada yar wey wana qarsanayeen oo si sir lagu soo galiyay oo maamada ma ogeeyay meesha rag fadhiyaan waxa la qinayo bilaa